السلام عليكم داوديال kusoo dhawaada farxada channel hadii ay markuu ugu horeysay booqashada fadlan subscribe sar channelkeena rukumar gambalka sida noqdo daawada ugu horeey muuqaaladan halkan soo gelin like share comment la wadaag asxaabtaada kuna soo dhawaada muuqaalada koor intaana gudgelin muuqaalka waxaan rabaa inaan soo dhaweeyno oo subscribe u saarno asxaabteena naga mid ah balse intaana gudgelin waxaan sameynayaa share out ka bishaan intaana u dhameyn doona insha Allah bish kale soo socota ayaa dib u furi doona waxaa share out u saartaa channelka Nasr Xuseen official oo ah gabar YouTuber Soomaaliyeed kana mid ah teamkeena oo runtii aad idin kaga mahadcelinayso saad u caawiseen u daawateen channelkeeda subscribe u saarteen muddada kooban oo harsan insha Allah waxaan rajeynayaa inaad ka farxin doontaan waxaa sidoo kale booqataan channelka Runsheeg Media oo isagana ah wiil Soomaaliyeed oo YouTuber ku nool dalka Canada kana mid ah asxaabteena inta badan sameeya reactionada sidoo kale barnaamijyo caadi ah sameeya ama duubista xafladaha sidoo kale waxaad booqataa channelka la yiraahdo Gulwade Media Group oo isagana ah YouTuber Soomaaliyeed subscribe u saar channelkiisa wuxuu ka mid yahay asxaabteena prank ayuu sameeyaa challenge ayuu sameeyaa isagana subscribe ha loo saaro waxaa sidoo kale booqataa channelka la yiraahdo Laacib TV Tube oo isagana ah channel sports inta badan ka hadla waxaa halkaas kugu soo dhaweynaya Ismaan fantastic oo ah khabiir sports oo runtii 25 sano ugu dambeysay aad u hadalhaayay arrimaha ama baad u falanqeynay arrimaha sportska Maades Media Channel waa wiilal dhalinyaro Soomaaliyeed oo iyagana ah YouTuber kuwaas oo inta badan kamid ah asxaabta ku nool gudaha dalka laakiin barnaamijyo qosol iyo maad leh magacooda ka garo Maades iyagana subscribe loo saaro hal booqdo channelkooda shantaas ayaan u qabanayna hawshooda kadib ayaan qaadan doonaa YouTuberada kale ama bayana caawin doonaa insha Allah haduu Ilaahay yiraahdo sidoo kale waxaad booqataa channelka saaxiibkii Axmed Faarax Jaagoon godadle channel oo isagana ah YouTuber kamid ah asxaabtii ugu horeysay farxadii aan isku la bilawnay laakiin muddo kadib odayga hadda dib u soo kacay wuxuuna diyaar u yahay inuu muuqaaladiisa idin la wadaago waxaan rabaa muuqaalkan inaan kaga hadlo show uu qabanayo Suldaan Seraar haddii aad fanaan tahay aad rabto inaad shacbiyad yeelato aad rabto inaad performance gareyso please marka hore wax diyaarso heesa diyaarso taageerayaal sameey wax macquul ah sameey kadib dadka wal hortag fanaaniin waxaa jira showyadooda la sugaayo oo haddii showyo ay ku dhawaaqaan ama ay soo dhajiyaan magaalada gilgilin doonta waxaa kamid ah fanaankaasi Guuleysiinba ilaa hada show ma dhagsan mana ku dhawaaqay show waxaa laga yaabaa in 10 hees ama 11 hees meelaha uu maraayo guud ahaan heesihiisa kuwa lamaanaha iyo kuwa kale Suldaan Seraar wuxuu ku jiraa fanaaniinta shacbiyada sameeyay saas ayuu u wareegayaa wadamada la isku yiraahdo Scandinavianka waxa Sweden hadda wuxuu joogaa Finland darada ayaa lagu soo dhabeeyay waxaan daawanaynaa showgiisa Finland iyo Suldaan Seraar wacdaraha uu sameeyay iyo waxa uu kaga duwan yahay hadda fanaaniin badan oo raba inay showyo sameeyaan laakiin showyadooda aan la xiisayn daawasho wacan muuqaalkan ishaada ayaa ku macalina hamoogaan Guuleysiinba Ismaaciil Daran iyo fanaaniin waaweyn ayaa wacdara dhigay showgaas xitaa wuxuu noqday show albaabada loo xiray oo dadka ay buux dhaafiyeen hoolkii loogu talgalay showgaas saas Allah daawasho wacan haddana mid kale waxa waaye showgiisa isaga gabdho badan ka soo qayb galay gabdho shidan gabdho qurxoon iga raal noqdo maanta hergaba ahaa laakiin waa duwa muuqaal waa duwa sababtoo maalmaan aad la soo cambaareeyo waxa leedahay ma shaqaystaa noqotay waa jiiftaale ma kacadid aro hergaba xitaa aan duwa Suldaan Seraar iyo Finland
showgan waa hoolkan waa buuxsamay banaanka tag dad kala joogo gees fiiri dada tikadhadii iibsaday oo meel ay soo galan waayeen waxa laga yaabaa reer villain in loo biisa marka loo hadana la yiraahdo biisa oo marka la show loo qabto soo fanaankan heesiis horta milyan badi way dhaafeen badi heesiisa milyan way dhaafeen dadkan way xiiseenayaan waa fanaan la fahmi karo wax uu ku heesaayo fadhiyaan erayadiisa muusigiisa performancegiisa aad u fiican hadda ma yahay hadda ma la soo bilaabay fanka ma aha 2018 iyo 2019 ma hadda ma yahay 11 iyo 12 meelahaas la soo jabhadeynaayo isaga iyo Cariir Axmed muuqaaladooda marka daawato inta qosasho leedahay nimanka hadda kadib laga leexdo waa dad akademiyad ka soo bilaabay oo mar hore fanka soo galay ugu dambeeyna hadda natiijadiisii haay marka wax walba waa step orod wax lagu ma gaaro way jiraan fanaaniin hadda showyi qabta oo ilaa 7 hees leh ama 5 hees leh waxa caawinaya fanaaniin kale laakiin shacbiyaddan oo kale ilaa heer kaliya ah performance gareyso ee heesaha tirada ka batay mid walba mid kale ka xiiso badan waqti u baahan tahay ماشي نوضع ايفون 11 والله اني Soomaaliyeed wixii cusub horay ka qaatay waraanay hortaniyo waarta iPhone ka dad badan oo xiisay waa arkay laakiin ana dhulkii aan xitaa qaadan lahayn meeshaan duu saaray aan qaadan lahayn Samsung waa la qaadan karaa laakiin iPhone waa horumar fiican qof iPhone wata leebad live soo gali karo wax duubi kara kuwa Samsung ku way xishoodaan meena wax xishoona Soomaaliyeed Samsung ku wadata iyo mobilada kale iPhone 7 ka iyo iPhone 6 ki la xiiseen jiray waa laga xishoodaa iPhone 11 ama wadata X Max Pro kuwa la dhaho xitaa arkay oo yana laga sii xishoodo ujeedka intaas maahan waxa waaye dadka jooga showga iyo fanaanku isla falgalaan waliba showgan waxa duubay dad yaqaan sida loo perform garay show heesihiisa qarsan hadii aad aragto automatic bicra heesta officialka aheed la saarayo in showga la keeno oo heesaha la dul saarayo hada aragto cilada jirta showgaas laakiin showgan dadka iyo fanaanku isla qabsadeen way isla heesayaan بس waxa la helaa markii waqti aad bixiso dadaal sameyso dulqaad sameyso wax cusub la imaado ay beesada ku soo gashaa xitaa 50 euro 30 euro 40 euro hadii la dhaho showga aan waxa ogaa in la imaan lahaa Suldaan Seeraar showgiisa camalada show uu qabanayo guuleysin badii uu show soo dhigsado nimcaan hilaa hadii uu soo dhigsado qaaliladani iidla hadii show soo dhigsadaan waa ogahay fanaaniin badan oo aan showyadoodii badnaan hadii ay show soo dhigsadaan kuwana jimca show u qabtaan iyo bilbil jimca bil ay show u qabtaan laakiin waa ina aad wax sameysaa xitaa dadka inay ku xiisaan la rabaa yaaqay badi heesiisana gabdhaha lagu amaanaa wax meesha joogo dhan waa dumarkana aad ay u jeceliina maanta farxad ay u tahay dhiirigelin ay u tahay stresskan uu ka baxaa Yeah.
gabdhihii dhan heesaanay rabaan aad ku marka de waa heesahan oo kale waa inaa la imaada abwaanin la yaqaano waa inaa haystaa sidoo kale showgan waxaa wacdar sameeyay Guuleysimba oo bishaan isla soo saaray 2 heesood oo shidan oo kala kacsan midba ka sii daran waxaan arkaynaa heestii iyana ugu saameynta badneed Guuleysimba ee toddobaadkii ku gaartay 1 fanaanta aad tagto Finland ma weynaysid fanaaniin ku kala kiciyaan dad badan aad jooga waxaa jooga mid kamid ah fanaaniinta ugu daawashada badnaa sooda Finland jooga meelo qaar waa la dagaalaa ana waa arkay fanaaniinta London oo isqa qabsanaayo is dagaalaayo waa arkay laakiin Finland dad ay u xireysan tahay marka aad tagaysid waa inaad aqoonsi ku gashaa aqoonsi waa inaad lahaataa ha هستي منى هستي قفاع هستي اسم الله في سج هست والب سج أصلا هست اللي رادو سج يو إيش كين جامع هست بدن وصو صاري لما تودي مليون كوين عفين Guuleysimba marka Guuleysimba دي أسيس كوكا لك عيو شو حاجة إنه دمينا كوها هذا يستان فيري ده كيس يقول يستان لحن iyo music iyo erayo iyo performance iyo in muuqaalka si qurux badan laga dawo absolutely showgi ugu saameynta badnaa 2020 ayuu noqday showgan maalin ciid lama joogo maalin weekend miyaha xali ala qabtay adii waa sabti axad inta u dhaxayso waay okay design hoolka meel walba uu ka diyaarsan yahay warniyo meeshan dadaas ugu imaaday meeshan yar way kala kacsan tahay heesta qaybtan waxaan TikTok lagu bartay TikTok u fiirsanaa wada kala Soomaalida waa ilbixin miyaa sida waxay u labisanaayeen ajaanibta ma gabdha Soomaaliyeed gabdhaha ajaanibta kale u labisanaayeen ilbixin ma wala ka saal ilbixin ma qofku waxa fiican oo asturnaado okay كل هدي أفنان تهاي مقال كان رياكشن أنا أدركته performance كان كل وارجينا إن فكرة يحقق قاعدة دونته hal sano waa inaad maqnaan kartaa si aad wax cusub samayso waa inaad dul qaadan kartaa wax walba waqti leeyihiin waqtigoodi marka la gaaro soo bandhig waad ku maasantahay diyaad ka shaqeyn like share fanaaniinta diyaad taageersan tahayna see you again next video inshallah bye bye